tani waa hambalyadii boqortooyada Ingiriisku ay u soo dirtay Somaliland. Tanna waa 27 Juun hambalyo dowladda Mareykanku ay u soo dirtay shacabka Somaliland isla markaasina ay ku aqoonsatay dowladnimadooda. Sidoo kale tani waa warqad ka timid dowladda China oo ay ku hambalyeynayso madaxbannaanida Somaliland kuna aqoonsanayso dalnimadeeda. Somaliland waxay noqotay dhulkii ugu horeeyay ee dhulka Soomaalida madaxbannaanidiisa hela. haddii la isla tago maxkamad markaasi ama Hague ha noqoto ama meel kale ha noqotee gar ma helano. 26 Juun 1960 oo maanta laga joogo 66 sano ayay Somaliland noqotay dal madax bannaan kadib markii ay xorriyadda ka qaadatay maxmiyadda Ingiriiska. Ka hor intii aan gumaystaha Talyaaniga, Ingiriiska iyo Faransiisku aanay iman dhulka Soomaalida, ma jirin dowlad ay ku midaysan yihiin dadka Soomaalidu, balse waxa ay u kala deganaayeen qabiilo iyadoo beel kastaaba ay sideeda isku maamuli jirtay. waxaa talada ugu sarreysa ee qabaa'ilka Soomaalidu ay ka guuri jireen madaxda dhaqanka, gaar ahaana sandaladaha, garaadada iyo sidoo kale ugaasyada. Ingiriisku waxa uu Somaliland ku yimi heshiis uu la galay beelaha Somaliland oo ahaa ilaalin ama sidoo kale maxmiyad korjoogteena. arrintani oo ka dhigan in Somaliland ay kaga duwan tahay dowladaha kale ee Afrikaanka qaarkood oo gumaystuhu uu ku yimi qori caaradii isla markaasina uu xoog ku haystay muddadii uu joogay. odayaasha dhaqanka ee Somaliland iyo boqortooyada Ingiriiska ayaa waxay wada galeen heshiis qoto dheer oo nuxurkiisu ahaa in dowladda ama boqortooyada Ingiriisku aanay bixin karin dhulka Somaliland iyo sidoo kale in dadka Somaliland aan la gaalaysin karin iyo sidoo kale in boqortooyada Ingiriisku ay iskaga baxdo dhulka Somaliland marka dadka Somaliland ay doonaan in ay xorriyadooda ka qaataan. Dhamaadkii qarnigii 19aad iyo sidoo kale bilowgii qarnigii 20aad waxa Somaliland ka bilaabmay dhaqdhaqaaq gobonnimo doona oo ay hogaaminayeen ciidamadii daraawiishta ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo doonayay in gumaystaha Ingiriiska, Talyaaniga iyo sidoo kale dowladda Itoobiya ay ka baxaan dhulka Soomaalida haddii kalena qori caaradii lagaga saaro. muddo 22 sano kadib waxa boqortooyada Ingiriisku ay jabisay ciidankii daraawiishta 1920 isagoo diyaarada ku weeraray qalcadaha Taleexo noqday goobihii ugu horeeyay ee Afrika ku yaala ee diyaarada lagu weeraro. kadib ciidankii daraawiishtii waxa uu Ingiriisku sii maamulayay dhulka Somaliland ilaa 40 sano. intaasi kadib waxa bishii August ee 1940 Talyaanigu uu xoog ku qabsaday Somaliland isagoona ka saaray Ingiriiska. waxaana Talyaanigu qabsaday Hargeysa ilaa iyo Berbera isagoona dhulka Somaliland ka soo galay dhanka Soomaali galbeed ama dhulka dowlad deegaanka Soomaalida ee hadda ku jira dowladda Itoobiya. kadib 8 bilood oo Talyaanigu haystay dhulka Somaliland waxa Ingiriiska iyo xulafadiisu ay sameeyeen rogaal celin waxaana ay dib u qabsadeen dhulka Somaliland bishii Maarch ee sanadii 1941. waxa xusid mudan in kaliya Ingiriisku aanu qabsanin Somaliland balse xataa uu Talyaaniga ka saaray dhulka Soomaaliya oo Talyaanigu waqtigaasi haystay. Ingiriisku waxa uu Soomaaliya sii joogay ilaa 1950 arrintaasi oo ka dhigan in muddo 9 sano uu maamulayay dhulka Soomaaliya. markaa wixii ka dambeeyayna waxa uu ku wareejiyay qaramada midoobay. 1945 waxa Somaliland ka bilowday dhaqdhaqaaq xornimo doona oo ay hogaaminayeen aqoonyahanka Somaliland waxaana la sameeyay 3 xisbi oo kala ahaa SNL, NUF iyo sidoo kale USP. waxaana dhulka Somaliland taariikhda markii ugu horeysay ay doorasho qof iyo cod ka dhacday 18 Maarch 1959. doorashadaasi oo ahayd doorasho baarlamaan waxaana lagu doortay 33 xildhibaan oo ay kala heleen 3 xisbi. xisbiga SNL waxa uu helay 20 kursi halka xisbiga NUF uu helay 1 kursi. sidoo kalena xisbiga USP ayaa isagu helay 12 kursi. 33 kan xildhibaan ayaa waxay sameeyeen golo wasiiro waxaana ay wasiirka koobaad ka dhigteen Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal halka 4 wasiir oo siman ay ka dhigeen Cali Garaad Jaamac, Axmed Xaaji Aadan Ducaale oo ku magac dheeraa Kayse, Xaaji Yuusuf Iimaan iyo sidoo kale Xaaji Ibraahim Nuur.
xukuumaddan oo ay wada dhisteen SNL iyo sidoo kale USP ayaa waxa ay halgan dheer geliyeen islamarkaasina ay ka shaqeeyeen sidii ay Somaliland madax bannaanideeda uga heli lahayd boqortooyada Ingiriiska waxaana ay tageen London halkaas oo ay kula kulmeen boqortooyada Ingiriiska oo ay u sheegeen inay doonayaan inay siiyaan madax bannaanidooda intaa kadib waxa 26 Juun 1960 ay dowladda Ingiriisku si rasmi ah ugu dhawaaqday in Somaliland ay tahay dal madax bannaan oo halkaas ay ku dhamaatay maxmiyadii boqortooyada Ingiriisku waxaana Somaliland ka bilowday dabaaldegyo waaweyn oo shacabku ay ku soo dhaweynayaan in ay helaan madax bannaanidooda sidoo kale waxaa bilaabmay hambalyo iyo sidoo kale aqoonsiyo Somaliland uga imanaya dowladaha dunida dowladaha Somaliland aqoonsaday isla markaasina soo hambaliyay oo tiradoodu ka badnayd dhowr iyo 30 wadan waxaa ka mid ahaa dowladda Israa'iil oo iyadu ahayd dowladdii ugu horeysay ee Somaliland aqoonsata dowladda Mareykanka boqortooyada Ingiriiska China iyo sidoo kale dowladda Faransiiska waana kuwan hambalyadii ay dowladahaasi u soo direen Somaliland tani waa hambalyadii boqortooyada Ingiriisku ay u soo dirtay Somaliland tanna waa 27 Juun hambalyo dowladda Mareykanku ay u soo dirtay shacabka Somaliland isla markaasina ay ku aqoonsatay dowladnimadooda sidoo kale tani waa warqad ka timid dowladda China oo ay ku hambalyeynayso madax bannaanida Somaliland kuna aqoonsanayso dalnimadeeda Somaliland waxay noqotay dhulkii ugu horeeyay ee dhulka Soomaalida madax bannaanidiisa hela sidoo kalena waxay noqotay wadankii sagaalaad ee qaaradda Afrika madax bannaanidiisa qaata inta kadib 1 July 1960 waxa dhacay mid u dhaxeeyay Somaliland iyo Soomaaliya oo maalintaasi madax bannaanideeda qaadatay midowgaasi oo ay hormood u ahaayeen shacabka Somaliland oo hamigooda ugu weyn uu ahaa inay isku keenaan shantii Soomaaliyeed oo kala ahaa Soomaaliya Somaliland dowlad deegaanka Soomaalida Kenya iyo sidoo kale Djibouti waxaana ay Somaliland iyo Soomaaliya ku midoobeen magaca Jamhuuriyadda Soomaaliyeed taasi oo laga dheehan karo in midowga jamhuuriyaddaasi uu salka ku hayay doonitaanka Soomaalida maqan inkastoo sharcinimada midowgani uu madmadow badan iyo dooda ay ka taagan yihiin oo xataa qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliya ay aaminsan yihiin inaanu sharci ahayn midowgani waxay oranaysaa the state of Somaliland and the state of Somalia do hereby unite u fiirsada kelmadaha walaal do hereby unite and shall forever that's the keyword and shall forever remain united in a new independent democratic unitary republic in the name of the Somali Republic hadduu looyaraa inugu jira haddii la dhuuxo markaasi waxa weeye haddii taa laga baxo waxaynu ka baxnay heshiiskii la galay ay dadku u codeeyeen ee Jamhuuriyadda Soomaaliya abuuray ayaynu ka baxnay weeyaan haddii la isla tago maxkamad markaasi ama Hague ha noqoto ama meel kale ha noqotee garma helano haddana waxyaabaha midowgani fashiliyay waxa qayb ka ahaa in Soomaalidii kale ay diideen inay qayb ka noqdaan Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed gaar ahaan Djibouti oo xurnimadeeda qaadatay 27 July 1977 inkastoo 1961 Somaliland ay saluug weyn ka muujisay midnimadaasi oo dhacay inqilaabkii fashilmay oo ay sameeyeen saraakiil Somaliland ka soo jeeda oo doonayay inay dib u soo ceshadaan madax bannaanidooda inkastoo markaas ay fashilantay inqilaabkani waxa haddana ay riyadani rumowday 30 sano kadib 1991 May halgan hubaysan oo ay galeen ururkii SNM timadheer waxbo degdeg ah rid waxay Somaliland dib ula soo noqotay madax bannaanideeda waxaana ay shacabka Somaliland magaalada Burco
ay 18 May ee 1991 ay beelaha Somaliland ku dhisteen dawlad Somaliland ka kooban. dawladdaasi oo maanta jirta 35 sano